siyaasi Axmed Cige Maxamed oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah wadani oo maanta shir jiraayad ku qabtay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ugu baaqay in xorriyadiisa loo soo celiyo siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo wariye Cali Mahdi Jibriil Xasan oo maalmihii u dambeysay ku xidhan saldhigga magaalada Hargeysa waxaana uu siyaasigani xukuumadda ugu baaqay in si degdeg ah loo soo daayo labadaasi shakhsi oo uu sheegay in loo xidhay arrimo siyaasadeed isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Muniir Axmed Cigaal waxa noo cadaatay inuu xidhan yahay arrin siyaasadeed oo cambaaraynana waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaayo mudane madaxweyne dhaqankaaga ma ahayn in qof lagu caburiyo amba lagu qabto 7 casho muddo ku dhow jeelka lagu hayo oo la yiraahdo fikir oranaya maxaad noo soo raaci weyday arrinkaasi madaxweyne arrinkaagi maaha arrin sax maaha arrin dadku ku dhaqmayaan maaha arrin dadka wadaya maaha waxaan aad iyo aad madaxweyne kaaga codsanaynaa intii dhacday in sida ugu degdeg badan leh dalka adiga xukuma mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxa uu xidhay Muniir Axmed Cigaal waxa weeye arrin siyaasadeed Yacquub Saciid Kooriya Somali News TV